waxa uu sheegay inuusan doonayn inuu muuqaalkiisa bedelo kadib dacaayado iyo culaysyo uga yimid dadka kuwa oo ku dhiirigelinaya inuu xiro timahan daboolay jirkiisa oo dhan. marka laga yimaado takoorka bulshada uu la nool yahay, Lalid Pachidar waxa uu haatan ku guuleystay bilada qofka timaha ugu badan wajiga ku leh ee buugga mucjisooyinka adduunka. ninkan Hindiga ah oo 18 sano jir ah waxa ku dhacay cudurka la yiraahdo hypertrichosis ka oo sababay koritaan timeedkiisan xadbeelka ah. waxaana la wariyay inuu 201.72 timood ku leeyahay halkii square centimeter ee wajigiisa, taa oo ka dhigtay qofkii wajigiisu ugu timaha badnaa taariikhda aadanaha ee la arko. I'm speechless. I don't know what to say because I'm very happy to get this recognition. farxad darteed ma hadli karo. waxaan aad ugu faraxsanahay aqoonsiga Guinness World Record. qayb ahaan dadku si aan wanaagsanayn ayay ila dhaqmaan marka koowaad ee ay arkaan, halka qaar kale si hagaagsan ii qaabilaan. qofka uun ayay taasi ku xiran tahay. Well, the first days at school it was not so good because the other kids were scared of me. maalintaydii ugu horeysay ee iskuulka, carruurta oo dhammi waa ay iga baqeen. markii aan hadlay ayay soo ogaadeen inaan ahay ruux kale oo iyaga la mid ah. dad badan ayaa isweydiiyey sida uu u nadiifiyo wajigiisa cirif kasta timuhu dabooleen. I don't use a particular product, but I have to take care of them carefully every day. Just I wash them, but without any shampoo or something like this. ma isticmaalo product khaas ah. waan sadaqaa maalin kasta anigoo aan isticmaalayn shampoo iyo wax la mid ah. dad badan ayaa Lalid u soo jeediyay inuu xiirmo la daba galo timahan wajigiisa qariyay. wuu se diiday oo ma doonayo inuu wajigiisa u bedelo doonista dadka. Well, there is not much to say to people, but I tell them that I like how I am. I don't want to change my look. ma hayo wax badan oo aan dadkaas u sheego. kaliya waxaan dhahaa ma doonayo inaan bedelo sida aan u ekahay, waayo waan jeclahay sidan aan u ekahay. Lalid waxa uu doonayaa inuu dunida ku safro, barto dhaqamada kala duwan ee adduunkeena, muuqiisa mucjisada ahna tuso dadyowga kale ee iyana markooda aragiisa la fajici doona.